wacan oo wanaagsan idil ahaantiin daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waa hadihaan daawadayaal aanu halkan idinka soo gudbin jirnay barnaamijkii aadka u xiisaha badnaa ee dhacdooyinka adduunka barnaamijka dhacdooyinka adduunka ayaa toddobaadkiiba aad hal mar ka daawataan kana dheehataan shaashadaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland barnaamijka dhacdooyinka iyo habeenkan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin aad u xiiso badan isla mar ahaantaasina aan isleeyahay waxa ka heli doona oo ay raali gelin doonaan daawadayaasha ku xidhan tvga qaranka iyo waliba barnaamijkani haddii aan daawadayaal 2 iyo 3 qodobada aan ku soo qaadan doono barnaamijkani aan idiisii hormariyo amaba aan idiisii taataabto ayaa waxaynu kamid noqon doono oo aan ku soo qaadan doonaa nin isagu madaxiisa ku qaadaya baabuur waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doonaa gabadh u dhalatay wadankaasi Hindiya oo noqotay gabadha ugu gaaban dunida dhacdada kale in iyadana ku soo qaadan doono intaan barnaamijkan ku guda jirna ayaa wax noqon doonta gabadh wadankaasi Talyaaniga u dhalatay oo iyaduna birgaaraysa 50 mitir dhakadeeda ku dul ciyaari doonta ulaha lagu ciyaaro gacmaha daawadayaal xubnahaas iyo waliba xubno kale oo aad u xiiso badan ayaa aan ku soo qaadan doonaa intaan barnaamijka ku guda jirno ee daawadayaal hanaga fogaanina ee ku soo dhawaada shaashadaha telefishinka qaranka haddii aan daawadayaal soo qabto xubinta ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka iyo toddobaadkani ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa nin isagu madaxiisa ku qaadaya baabuur isla mar ahaantaana laga rabo amaba loo eegi doono inta daqiiqadood ama sakan ee uu baabuurkaasi madaxiisa ku hayo dad badan ayaa laga yaabaa inay maskaxdooda ka dhaadhici weydo in qof bini aadan uu madaxiisa baabuur ku qaado bal haddaba daawadayaal aynu eegno dhacdadaasi waa tan ee daawasho wanaagsan dhacdadani waa dhacdo aad u la yaab badan ninkan aynu arkayno ayaa isagu doonaya in uu madaxiisa ku qaado baabuurkan aynu arkayno oo culayskiisu aad u badan yahay ayna adag tahay in qof bin aadani uu baabuur madaxa ku qaado balse ninkani waxa uu doonayaa isagu inuu buugan dhacdooyinka adduunka ku soo bandhigo oo uu kaga qayb galo inuu madaxiisa ku qaado baabuurkan aynu arkayno bal daawadayaal aynu eegno inay u suurto gasho iyo in kale inuu ku guuleysto waxaana la eegi doonaa inta daqiiqadood ama minute ee uu madaxiisa ku hayo ee aynu dhugano sida aynu arkayna daawadayaal wali waxa wadaa inuu madaxiisa ku hayo baabuurkani See that? That's fantastic. Johnny, unbelievable. And that's what you call nobbing. You look like you're buzzing, man. That's unbelievable. It's making me feel younger. That's brilliant. Again, come on, everybody. Come on, that's an unbelievable track. Thanks, Michael. Nice one, nice one. You see it, don't you? Ladies and gentlemen, John Evans balanced a 352-pound mini on his head for a total of 33 seconds. A new Guinness World Record. Johnny. Thank you.
ninkan lagu magacaabo Johnny ayaa isagu baabuurkani madaxiisa ku hayay 33 ilbiriqsi amaba sakan dhacdadana waxay noqotay dhacdo aad u cajiib badan isla mar ahaantaana lagu soo kordhiyo dhacdooyinkii adduunkan u yaalay waxaana laga diiwaan galiyay ninkan lagu magacaabo Johnny inuu ka mid yahay dadka la yimaada dhacdooyinka cusub sidaasna waxa uu ku galay buugga adduunka lagu qoro dadka dhacdooyinka cusub la yimaada ee Juniors World Record-ka sidaa arkaysan daawadayaal ninkaasi waxa uu madaxiisa ku qaaday baabuurta noocooda yaryar ee aynu u naqaano inagu duqaanka amaba baabuurta yaryar wuxuuna madaxiisa ku hayay baabuurkaasi 33 sakan amaba ilbiriqsi sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan dhacdada labaad ee barnaamijka daawadayaal aan idinku hayo ee aan ku soo qaadan doono ayaa waxay tahay gabadh u dhalatay wadankaasi Talyaaniga ayaa iyadu waxay kori doontaa bir dhererkeedu gaarayo 50 mitir iyadoo dusha uga baxaysa isla marhaantaasina birtaasi la socoto ayaa waxay ku dul sameyn doontaa oo ay 1 minute gudaheed laga rabaa inay ku dul ciyaarto ulaha lagu ciyaaro gacmaha amaba kubadda lagu ciyaaro gacmaha sida shaashada daawadayaal aad ka arkaysaan hadii ay ulahaasi inta lagu guda jiro halkaasi minute amaba halkaasi daqiiqo ay ka dhacaan ma geli doonto buugga dhacdooyinka hadii se ay u suurto gasho waa ay ku geli doontaa bal hadaba daawadayaal gabadhani aynu eegno in ay guulaysato in ay guul daraysato labadaba ee daawasho wanaagsan adduunyada nin noolow maxaa aragto ku laaban dhacdadan daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa gabadh iyadu u dhalatay wadankaasi Talyaaniga ayaa waxay doonaysaa inay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ay kaga qayb gasho in ay 50 mitir meel gaaraysa inta ay korto isla mar ahaantaasina bir wareegaysa ay dhakada uga baxdo ay ku dul ciyaarto kubadda gacanta lagu ciyaarsiiyo muddo 1 minute ah dhacdadan ayaa haday gabadhani u suurto gasho waxay ku galaysaa buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan meeshan ay saaran tahayna waa meel aad u khatar badan halkan aad arkaysaan daawadayaal ee ay saaran tahay ayaa doonaysaa inay ku dul ciyaarto oo ay gacmaheeda ku dul ciyaarsiiso kubadahan yaryar ee iyagu gacmaha loogu talagalay iyadoo birtani la wareegaysa bal hadaba aynu eegno inay u suurto gasho inay ka daataan inay iyadu ka dhacdo intaba daawadayaasha waxaan uga digaynaa inaanay isku dagin dhacdooyinka noocana Die spinnt doch. Und das schaukelt ganz schön da oben. Oh Gott! Mir wird gleich schlecht. Oh Gott! Ich glaube, mir wird schlecht. Ja, meine Rede. Isabel, was machst du da oben? Okay. Hol uns den Rekord nach Deutschland. Los geht's. 1 Minute Zeit, volle Konzentration. In 50 Metern Höhe. Ich gesehen, das ist ein Zirkusmast da oben. Meine Güte. Und wie das Ding sich biegt. sidaynu arkayno daawadayaal wali waxay wadaayna gacmaheeda ku ciyaarsiiso iyadoo birtani la wareegaysa kubadahaasi bal aynu eegno inay ku guulaysto Als wäre sie festgewachsen. Ja, ich schon. Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ja. Noch 20 Sekunden. Man denkt ja eigentlich, es kann nicht funktionieren, aber Nein. offensichtlich. Dass der Mast schwingt, das wollte sie, das war ihre Vorgabe. Der muss aber nicht so schwingen. Für diesen Rekordversuch noch 3 Sekunden. 2, 1. gabadhani daawadayaal waxay ku guulaysatay inay halkii minid ee loogu talagalay ay kubadahaasi gacmaha ay ku ciyaarisay iyadoo birtani la wareegaysa ay ku dul ciyaarsiiso sidaasna waxay ku gashay buugga dhacdooyinka adduunka ee Juniors World Record-ka sidaad arkaysan daawadayaal gabadhaasi waxay 1 minute gudaheed ay gacmaheeda ku dul ciyaarsiinaysay ulahaasi gacmaha lagu ciyaaro iyadoo korsan birtaasi dhererkeedu dhama 50 mitir iyadoo waliba birtaasi la warwareegaysa sidaasna waxay ku gashay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan dhacdadan markan daawadayaal idin soo qaadi doono ayaa waxay tahay
gabadh iyo wiil u dhashay wadankaasi Finland ayaa iyagu waxa ay ku tartamayaan oo ay doonayaan inay buugan dhacdooyinka kaga qayb galaan in ay koraan xarig u dhererkiisu gaarayo 5 mitir oo kor u dheer isla mar ahaantaasna ay u koraan sida daanyeerka oo kale waxaana laga rabaa kooga waqtiga ugu yar ku kora xarigaasi dhacdadani aad ayaa ay adag tahay ayaan oran karnaa daawadayaasha waxaan sidoo kale uga digaynaa inaanay isku dayin inay sameeyaan waxyaabaha noocan oo kale ah oo laga yaabo inay halis kala soo wajahdo bal haddaba daawadayaal labadan qof ee u dhashay wadankaasi Finland kooga ku guuleysta dhacdadaasi ee waqtiga ugu yar ku kora bal aynu eegno. So, once again we're in Finland. I know you're wondering what's going to happen. sidaynu arkayno dhacdadan daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa wiilkan iyo gabadhan ayaa iyagu doonaya inay ku tartamaan oo ay buugan dhacdooyinka kaga qayb galaan in ay cagahooga iyagoo isticmaalaya ay xarigan ku koraan waxaana loo eegi doonaa kooga waqtiga ugu dheer ku kora iyadoo xarigan uu kor u dheer yahay 5 mitir bal haddaba daawadayaal wiilkan iyo gabadhan ku tartamaya inay xariga kor u koraan muddo dhan 5 mitir ayaa bal waxaynu eegi doonaa kooga ku guuleysta. Very much for that, Mr. Malcolm Smith. The rules now to me are as clear as mud. Luckily, though, I'm not doing it. 1, go. Okay, Sarah, let's see how you get on. Excellent technique and a fierce pace there. The next guy's going to have to climb like a monkey to beat that marker, I tell you. Great upper body strength. Stop the clock, she's past the yellow mark, and down she comes. Incredible. sidaynu arkayna daawadayaal hadda waxa wareegii koowaad dhammaystiray gabadhani bal waxaynu eegi doonaa wiilkan la tartamaya isna inta ay ku qaadato in uu ku koro xarigaasi isagoo isticmaalaya cagihiisa iyo waliba gacmihiisa. Okay, please welcome to Omo. 3, 2, 1, he's off. And unbelievably, he is climbing like a monkey. That is incredibly quick. He'll be in the lighting grid before we know it. And down he comes. sidaynu arkayna daawadayaal hadda waxa uu dhammaystiray Toma Costone in uu cagihiisa ku koro xarigaasi bal waxaynu eegi doonaa guddidan qiimeynaysay iyadu ka ay ku sheegto in uu 5 mitir ee xarigaasi uu kor u koray waqtigii ugu yaraa. Sarah managed an amazing 15.3 seconds. The fastest ascent, the inverted climb of 5-meter rope, was to almost 13.7 seconds, a new Guinness World Record. sidaynu arkayna daawadayaal ninka lagu magacaabo Tomo ayaa isagu waxa uu ku guuleystay in uu 13.7 second uu ku koro xarigaasi dhammaan 5 mitir halka gabadha kula tartamaysay ay ku kortay 15.3 second sidaasna Tomo ayaa isagu ku guuleystay in uu noqdo nin ku soo kordhiya buuga dhacdooyinka dhacdo cusub. halkaad weli nagala socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland daawadayaal wixii talo iyo tusaale ah waxaad noogu soo gudbin kartaan gmail-ka aanu ku leenahay bogga internetka ee idinka muuqda shaashadani amaba telefonka numberkiisu uu idinka muuqdo isla shaashadani ayaad wixii talo iyo tusaale ah aad noogu soo gudbin kartaan talooyinkii iyo tusaalayaashii hore ee aadna soo siiseenna waanu qaadanay ayaanu leenahay daawadayaasha sida tooska u daawada una xiiseeya barnaamijkan dhacdooyinka. dhacdada aan markan daawadayaal idii hayo ayaa waxay tahay gabadh u dhalatay wadankaasi Hindiya ayaa noqotay gabadha ugu gaaban adduunka dhererkeegu intuu noqday intee seleegtay bal waxaynu ku ogaan doonaa barnaamijka gudihiisa iyo waliba warbixinta aanu ka diyaarinay gabadhani ee daawasho wanaagsan. daawadayaal sida arkaysaan gabadhan yar ee Geenin Chotsi waxa ay ku gashay buuga dhacdooyinka ee lagu qoro waxyaabaha dadka yaab galiya iyadoo noqotay gabadha adduunka ugu gaaban waxaana ka soo jeedaa wadanka India. Chotsi waa ay dhoolla cadeynaysaa waxaana ku sugan tahay madal ay u dhan yihiin dadka dhacdooyinka yaabka leh indha-indheeya suxufiyiin iyo daawadayaal tiro badan dhisme ku yaala magaalada New York ee wadanka Mareykanka.
Jyoti in front of you actually measures 2 feet and half an inch. laantii jotsi hortiina ayay taagan tahay waanaad aragtaan dherarkeedu wuxuu gaarayaa 2 feet iyo 1 inch barkii ma aha rikoodhkii ugu horreeyay ee ay gasho balse waxay hore u noqotay gabadha ama inanta ugu gaaban hablaha dunida jotsi oo la weydiiyey dareenkeeda ayaa waxay tidhi sidan तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से मैं सारी अलग-अलग सिटी में जाती हूँ लंदन इटली न्यूयॉर्क aad baan u jecelahay inaan ka mid ahaado dadka lagu qoro buugga dhacdooyinka ee la yaab kale waxaanan ka helay faa'iidooyin badan waayo waxaan booqday meelo badan oo caalamka ka mid ah sida London, Italy, New York iyo meelo kale oo badan dhakhaatiirta ayaa daawadayaal waxa ay leeyihiin gabadhani korriinkeeda wax dhib ahay kuma qabto marka loo eego qaabka uu jirkeedu u korayo iyo sida ay u yar tahay iyadoo miisaankeeduna uu gaarayo 5 kilogram oo qura haddaanu daawadayaal intaasi kaga soo gudubno dhacdadaasi oo aad arkayseen gabadhaasi u dhalatay waddankaasi Hindiya oo uu dherarkeedu noqday 2 feet iyo waliba half an inch waxayna sidaas ku noqotay gabadha ugu gaaban adduunka daawadayaasha iyo waliba caruurta daawada barnaamijkani waxaan uga digaynaa inaanay isku dayin oo aanay samayn waxyaabaha ay ku arkaan barnaamijkan dhacdooyinka waayo khatar iyo waliba halis badan ayaa ay leeyihiin oo idin kala soo darsi kara dhacdada aan markan idin haya ayaa waxay tahay nin u dhashay waddankaasi Sweden ayaa isagu doonayay inuu buugan dhacdooyinka adduunka uu kaga qayb galo oo uu ku soo bandhigo in uu 1 minute gudaheed uu ku jarjaro qadar muus ah oo aad u badan bal waxaynu eegi doonaa ninkaasi 1 minute inta uu ku jarjaro ma ku gali doonaa buuga dhacdooyinka adduunka ma ku guul dareysan doonaa labadaba daawadayaal waa mid uu ka filayo inuu kala kulmo qiimeeyayaasha Julius World Recordka bal haddaba daawadayaal muuska oo 1 minute gudaheed la kala jaro xabadii aad ayay u adag tahay ayaan oran karaa anigu balse aynu fiirsano dhacdadan iyo waliba isku dayga ninkan u dhashay waddankaasi Sweden Michael Otterson waxa uu isku dayayaa oo uu doonayaa in uu buuga dhacdooyinka kaga qayb qaato inuu gacmihiisa ku jarjaro 1 minute gudaheed muus aad u tiro badan bal waxaynu eegi doonaa ninka lagu magacaabo Michael Otterson oo u dhashay waddankaasi Sweden in uu isku daygani uu rabo in uu buuga dhacdooyinka adduunka ku soo bandhigo ee ah inuu 1 minute gudaheed ku jarjaro muus aad u tiro badan in ay u suurto gasho iyo in kale ee aynu eegno The judges are at the ready. The bananas are at the ready. And he's off. How many can he snap? His guess is as good as ours. Just look at him go. Have you ever seen someone make light work of yellow fruit? Well, you have now. Trust me, this isn't easy because he's not tearing the bananas in half. He's snapping them cleanly in two. Snap! Snap! Oh! A bit of a stumble there. He's back on track. Great technique. sidaynu arkayna daawadayaal waxa uu bartanka kaga jiraa in uu jarjaro muusaskani isagoo qadar aad u badanna soo jaray bal waxaynu eegi doonaa inuu halkaasi minute inta xabbe ee uu ku jaro iyo waliba inta uu ku jari waayo And there goes the judge just removing one casualty out of the way. And look! The audience are going bananas! What a fruit frenzy! 18 seconds left on the clock. He seems to have got his rhythm back. Look at the grit. Look at the determination in his eyes. The judge is clicking away furiously there. sidaynu arkayna daawadayaal ninkan lagu magacaabo Michael Otterson waxa uu gacmihiisa ku jarjaray halkaasi minute ee loo qabtay 70 xabadood oo muus ah haddaba jarjarida muuskani ma fududa ayaynu oran karnaa in 1 minute gudaheed lagu jarjaro 70 mid sidaas ayaa ninkan lagu magacaabo Michael ee u dhashay waddankaasi Sweden ku galay buuga adduunka lagu qoro ee Julius World Recordka intaas daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii dhacdooyinka adduunka daawade wixii aad talo tusaale aad hayso waxaad noogu soo diri kartaa gmail-ka aan ku leenahay bogga internetka ee shaashada idinka muuqda amaba telefoonka numberka isla hadda shaashada idinka muuqda taladiina iyo tusaalihiinuba waa mid muhiima barnaamijkan daawadayaal
barnaamij lamida intaan iskugu iman doono dhanka kaamarada lightinka iyo isku dabaridka barnaamijka waxaa door weyn ka qaatay Fawzi Axmed Caynab dhanka editonkuna waa Xamse Qurbaani anigoo Jamaal Axmed Naasira iyo waliba Axmed Saxardiid ayaa barnaamijkan soo diyaariyay barnaamij lamida intaan iskugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa isaragtimo qaldambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu